nin kufsi u geystay gabar yar oo 3 sano jir ah oo la daldalay. حكم خطف أنثى واغتصابها بالإكراه هذا يدخل في المفسدين في الأرض. Si aan u gudagalno muuqaalkan walaal waxaan ka codsanaynaa inaad like saarto muuqaalkan share gareyso si saaxiibo badan u gaaro sidoo kalena aad ku soo biirto page-kan Cabdikariim Cali Aadan mahadsanid badan. Nin ayaa waxa uu kufsi u geystay gabar yar oo 3 sano jir ah kaasi oo la daldalay. Ninkan oo u dhashay dalka Yemen isla markaana lagu magacaabo Maxamed Al-Maghribi ayaa waxa uu dil u geystay gabar aad u da'yar oo 3 sano jir ah. Maxamed ayaana ka hor inta uusan gabadha yar dilin kufsaday si xunna u dhaawacay. Si kiiskaasi aan loo ogaan amaba aan loo dabagelin amaba aan dabagal loogu samaynin ayuu dilay amaba uu nafta dhaafiyay gabadha yarta ah isagoo halkii uu falkaasi ka geystay oo ah magaalada Sanca isaga baxsaday si aan gacanta loogu dhigin maadaama la raadinayay ninkan gabadha yarta ah kufsaday. Dadka deegaanka ehelada gabadha iyo laamaha amniga oo iskaashanaya ayaa raadin dheer kadib waxa ay gacanta ku dhigeen Maxamed Al-Maghribi oo ah ninka gabadha yarta ah ee 3 sano jirka ahayd kufsaday sidoo kalena dilay. Al-Maghribi ayaana waxaa la horgeeyay maxkamad waxaana eheladiisu ay isku dayeen in ay diya bixiyaan balse gabadha la kufsaday lana dilay aabaheed ayaa arrinkaasi ka biyo diiday isagoo maxkamadda ka codsaday in sharciga loo marsiiyo waxa shareecada Islaamku ka qabtana loogu xukumo ninkan gabadhiisii kufsaday isla markaana dilka u geystay. Isjiid dheer kadib ayaa waxaa Maxamed Al-Maghribi lagu xukumay daldalaad iyadoo meel dadku ay ku badan yihiin lagu daldalay dad badanna ay u soo daawasho tageen fulinta daldalaadaasi marxuumka lagu fuliyay. Aabaha gabadha ayaana soo dhaweeyay in sharciga loo marsiiyo ninkii gabadhiisa yareed ee 3 sano jirka ahayd kufsaday sidoo kalena dilka u geystay. Dadkii isugu soo baxay goobtii fagaaraha ahayd ee daldalaada ninkaasi lagu fulinayay iyo sidoo kale ehelada gabadha ayaa waxay aad u soo dhaweeyeen sidoo kalena ay farxad ka muujiyeen in ninkaasi daldalaada lagu xukumo laguna fuliyo maadaama uu gabar aad u da'yar oo 3 sano jir ah fal kufsi ah uu kula dhaqaaqay sidoo kalena uu nafta dhaafiyay oo gacantiisa uu ku dilay. Ninkan gabadha falkaasi kula kacay ayaana aad uga daaweynaa gabadha yarta ah.